xafladan ay ku qalin jabinayeen 20 arday oo bartay cilmiga saxaafadda oo ka baxay maxadka Al-Cimra College oo ku yaala xaafadda Islii magaalada Nairobi ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabadaasi wariyayaal ardayda maxadka Al-Cimra qaybihiisa kala duwan iyo marti sharaf waxaana halkaas ka hadlay maamulka maxadka Al-Cimra qaar kamid ah wariyayaashii ka soo qayb galay munaasabada qalin jabinta waxaana ay kula dardaarmeen waxyaabaha ay barteen inay ugu adeegaan bulshadooda qofka media ka shaqeeya ama media barta waxaan rabaa inuu is ogaado horta inuu awood leeyahay inuu powerful inuu yahay ko mid labaad aan u baahanahay waxa weeye waxaan u baahanahay wax la yiraahdo responsible media mar haddaad media gashaan mas'uuliyad baa idin saaran waxa aad gudbinayso iyo warka aad gudbinayso iyo waxa aad qorayso iyo waxa aad sheegayso waa inuu yahay wax sax ah weey iskoolka Al-Cimro wuxuu kamid yahay iskoolaadka qayb weyn ama door weyn ka qaatay horumarka bulshada gaar ahaan bulshada ku nool xaafadda Islii iskoolka ma ahan markii ugu horeysay uu soo bandhigo qalin jabin saxaafadda dufcado badan baa jiray ka horeeyay dufcadahan haddaan wax niga taabto iskoolka waxyaabaha uu soo bandhigo ama uu bulshada u qabto waxa kamid ah qaybo fara badan baa leenahay ugu horeeya qaybta luqadaha Ingiriisiga Soomaaliga Soomaaliga Carabiga qof kasta wax uu qori karaa laakiin qof kasta oo wax qora wariye ma aha taas waa inaan fahamsanahay qof Facebook wuu ku qori karaa website wuu qori karaa aragtidaada waad bixin kartaa xor ayaad u tahay laakiin qof kasta oo wax qora waa inaan fahamnaa inuusan ahayn journalist waxay horta dafcadii tobnaad muujinaysaa joogteen iyo in iskuulkeenu uu muddo badan u soo jiray muujinaysaa waanan aad ugu faraxsanahay saxaafaddu maaha in raadiyo ama telefishin laga hadlo noocyo badan bay leedahay isbedel weyn bay keeni kartaa ugu dambeyntii waxa ardaydii qalin jabinaysay la guddoonsiiyay shahaadooyin cadeynaya waxay barteen Cabdirashiid Obsiye oo Cable TV Nairobi